ugu horeyn gudoomiyaha guddida gaashaanbureed maayir ku-xigeenka degmada عقاشة gaashaanbureed caaqilkeena cusub caaqil Salmaan Cumar Cabdilaahi odayaasha iyo marti sharafta kale iyo haweenkaba dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib dee maanta madashan bilanee boqoranee aynu dee ugu dabaaldegayno ama aynu ku calaamaad saarayno ama aynu ku boqorayno caaqilka cusub caaqil Salmaan Cumar Cabdilaahi aynu isugu nimi waan hambalyeynaya intiina ka soo qayb gashay caaqilka si gaaraan oo hambalyeynaya waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ku asturo xilkaa laba kelmadood oo dardaaran odhanayaa caaqil Salmaan horta waxa bulshadeena iska jira adeer waxa lagu celcelinayay caaqilku waa dhalinyaro gudoomiyihii dhalinyarada Baha Axmed halka fidhooyada uu lagu soo fiiro war Salmaan anaga reer Qoryaalana isku ahayno deemala ariga weyn oo farjirama dhalinyarada goorta wax la weydiinay garan mayno hadaan maanta wali dhalinyaranahay waxaan jecelahay laakiin inuu yahay xilligiidii wax la weydiin lahaa ee uu dhaamin lahaa ee waa rimin lahaa inuu taagan yahay marka taa dhalinyaranimada meesha waan ka saaraya waxa leeyahay war Salmaanow reerkuna oo ku sugaya isagoo de qayb roobla laga bilaabo Baha wixii lagu daro gaashaanbuuro gobolka oo dhan oo tolko dhan baa ku sugaya ilaahay waxa kaaga baryayaa inuu de kugu asturo xilka kii ka soo baxana aad noqoto ilaahayna ha ku barakeeyo leeyahay ilaahay abaaraha inaga jabiyo abaara baan baa jirta abaarta ilaahay inaga jabiyo ilaahay raxmad khayr qabto ha inoo soo shubo ha inoo soo dedejiyo innagana de ilaahay hayna barakeeyo aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaantiinba والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته